بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka ساعدك آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا كتحان channelkeena ساعدك آخره. qisadii noo soo taxneed ee qaybteedii shanaad waxay inoo maraysay iyadoo gabadha walaasheen ahayd ilmaha laga soo xaaqo marka la yidhi ay diiday oo ilaahay tala saaratay allana ay bariday iyadoo rajaynayso inuu ilaahay ilmaha uu nooleeyo una u badbaadiyo. haatana waxaad kusoo dhawaataan qaybta lixaad ee qisadaasi. raxmo oo qisadeeda kasii warramaysa waxa ay tiri markii aan ducadii dhammaystay waxaan ku noqday sariirtayda waxaana markiiba ii qabatay fool aad u adag aniga oo leh ilaahayow ma mayd baa iga soo baxaya mise ducadayda ayaad aqbasho ilmo nool ayaad isiin rabtaa. foosha waxay marna i qabato marna la iga khafiifiyaba iyadoo wax dhakhtar ah iyo cid i caawiso aan u baahan ayaan dhalay ilmo nool oo weliba wiil ah. waa wiilkayga ugu horreeyey oo aan xabiib u bixiyey. ilmihii yaraa ee dhashay afka ayuu furtay waa ilmihii ay dhakhaatiirtu yidhaahdeen waa mayd allihii shalay abuurayna wuxuu iga soo bixiyey isaga oo nool. dhakhtarkii ayaa loo tegay oo loo sheegay in aan ilmo nool dhalay wuu rumaysan waayey markaasuu yidhi mayd siduu dhalanaya. waxaan ku idhi idinku mayd haddii uu idiin ahaa allihii shalay i siiyey halkaana kaga warhayay ayaa naf geliyey oo isagoo nool iga soo saaray. ilmihii aan dhalay miisaan ahaan maadaama uu yaraa waxaa 3 bilood lagu hayay dhalada ilmaha lagu kululeeyo. isbitaalkana waxaa markaana ku jiray sanad iyo 3 bilood. geerida hooyaday waxaan maqlay sanad iyo 3 bilood kadib markii ay ka soo wareegtay. intaasi waa la iga qarnay ay tiri. isbitaalka marka la iga soo saaray ayaan xaajigayga u yeedhay waxaana ku idhi walaal Axmed aniga wixii hadda ka dambeeya inaad ii adeegto mooye kuma adeegi karo marka xaasku adeegto markaad amartidna amarkaaga yeesho oo ku qaadimto guurso. aniga wiilkan uu ilaahay i siiyey ayaan korsanayaa marka iska keen fasax ayaan ku dhahay. Axmed wuxuu igu yidhi raxma hal shay ma kuu sheegaa aniga iyo adiga midkeena hor dhimanaya allah ayaa garanaya. adiga aragga ayaad weyday anigana waxaaba dhici karta inuu jirkayga oo dhan uu allah ciid ku daro oo ula jeedo aan dhinto marka sidaa hadhihin aniga kuma guursan maalmahan adduunyo balse waxaan rabaa ilaa iyo aakhiro inaan isu heshano. inta aan noolahayna lagama yaabo inaan daqiiqad kaa fogaado marka dhankayga ka walwala'aw aakhiradeenna ayaan isu kaashanaynaa ayuu igu yidhi. waayahay ayaan ku yidhi anigoo mar walba saygayga u ducaynaya. kadib waxaan dhalay wiilkayga labaad ee riyaal 7 bilood kadibna waxaan waraystay wiilkayga saddexaad ee muraad. intaa ka gadaalna waxaan shaqo ka helay hoteelka Kuriifto ee Dabrazayd ku yaala. isagana wuxuu shaqo ka helay ay tiri gabra Guraaja meel loo yaqaano. nolol caadi ah ayaa noo bilaabatay iyo ilmo korsasho. xaalku markuu halkan marayo qoyska waxaa la soo daristay arrin horle. haddaba maxay tahay arrintaasi? raxmo oo qisada kasii warramaysa waxay tiri wiilkayga saddexaad ee muraad uurkiisa oo 4 bilood ayaan marayay waxaana xanuunsaday wiilkayga curadka. isbitaalka Dabrazayd markii wax looga qaban waayay waxaa loo gudbiyey isbitaalka weyn ee Duqranbasa ee ku yaala magaalada Addis Ababa. marka Axmed ayaan la hadlay xabiib aad ayuu u xanuunsanayaa haddana ambulance ayaa lagu qaaday oo waxaan ku sii soconnaa Addis Ababa isbitaalka Duqranbasa. wiilkayga xabiib xataa ma neefsan karin waxaana wacay Axmed oo aan xaaladda u sheegay waxaana ku yidhi ma noo imanaysaa? haa raxma waa idiin imanaya oo hadda ayaan soo baxayaa ayuu igu yidhi. wax yar kadib taleefon ayuu igu soo celiyey wuxuuna igu yidhi raxma inaan idiin imaado waan rabay laakiin maanta culays ayaan dareemayaa walwal aad u weyn ayaa ihaya waxa igu dhacay ma aqaano marka maanta waan iska joogayaa berri ayaan idiin imanayaa insha allah iyo waayahay ayaan ku yidhi. wax yar kadib ayuu soo wacay wuxuu igu yidhi raxma waan soo baxayaa waana soo socdaa. waxaana ku idhi soo adigii goor dhaweyd igu lahaa culays ayaan dareemayaa waan iska joogi. markaasuu igu yidhi wax waliba qadar alle ayay ku dhacaane markan waan soo socdaa. anna waxaan ku idhi nabad ku imow. arrin mucjisa ayaa igu dhacday markan. wiilka yaraa oo oksijiinka ama naqasku ku dhaganaa oo dhakhaatiirta ay caawinayeen oo nafka dhowrka ahaa marka aan isbitaalka aan ku soconnay wax yar u jirno ayuu soo booday isagoo qaylinaya oo leh hooyo wallaahi hooyo anigu ma dhimanaya aabbahay Axmedse wuu dhimanayaa. wiilkayga xabiib markaasi da'diisu waxay ahayd 4 jir meelaha. aniga iyo dhakhtaradii nala socday yaab ayay nagu noqotay waxa uu ilmaha yar ku hadlayo ileen ilaahay baa ilmaha yar iyo wax tusay intaan anagu isbitaalka soo gaadhin Axmed oo shil gaari galay oo ay nafta ku jirto ayaa isbitaalka aan ku soconay yaala oo bana ugu horreeyay. gaarigii ay Axmed iyo 14 qof oo kale oo rakaab saarnaayeen waxaa dul maray gaari weyn oo xamuul ah. 12 qof naftaba dhulka kulama dhicin waxay nafta ku jirtay oo kaliya Axmed iyo qof kale balse Axmed waxa shilkaasi ka soo gaaray dhaawac aad u culus.
isbitaalka markaan gaarnayba waxaa isbitaalka hortiisa ku dhagan dadka shilkaasi ku dhintay sawiradooda iyo magacdooda. markaasuu wiilkaygu u yiri hooyo soo kuma dhihin aabahay uu dhimanaya. markiiba qolkii dhaawaca uu yaalay ayaan si degdeg ah ku tagay. axmed oo jirkiisa oo dhan dhiig uu qariyay ayaan u tagay oo hadalkana dhibayo. markaasuu igu yiri axmed raxmay qadar alle lama celin karo soo kuma dhihin, qadar alle ayaa igu dhacday. waxayna dhakhaatiirtu igu yiraahdeen ayuu yiri qaliin ayaad galaysaa maadaama ay dhowr laf ay jaban yihiin ayuu igu yiri. qolka qaliinka marka la gelin raba axmed ayuu yiri xaaskayga igu yeedha. markaasaan la kulmay wuxuuna igu yiri raxma alxamdulilah idhe oo laba arrimood allah ugu xamdi. diinta islaamka aad sida u nacbayd allah ayaa kuu doortay oo muslimad ayaa tahay. ta labaad annagu qur-aanka barashadiisa waqti dheer ayay nagu qaadataa haddaan muslimiin nahay, adiguna ilaah ayaa kuu fududay oo 3 bilood iyo 20 maalmood ayaad ku dhammaysay. alxamdulilah uma alxamdulilah ayaan dhahay ayay tiri raxma. tan kale ilaahay amaradiisu sabab la'aan uma dhacaan. midda koowaada adiga oo kristan ahaa inta uu soo islaamiyey haddana 6 bilood kadib aragga kaa qaaday sabab la'aan ma aha oo allah uu ku jecel yahay. tan labaad ilmihii meyd ahaan lagaaga soo saari rabay allah nafta geliyey ee kaa soo saaray ilmo caafimaad qaba na siiyey. hooyadaadii noolayd ee caafimaadka qabtayna dilay awoodda ilaahay ayayna tusaysaa. tan kalena aniga hooyaday markay dhashay oo aan 3 maalmood oo keliya dhalanahay ayuu aabbahay dhintay oo yatiimnimo ayay igu soo karisay. adigana carruurtayda 3 ah yatiimnimo ayaad ku korin doontaa ayuu igu yidhi. maalin hore waan kuu sheegay labadeenna qof hor dhiman doono allah ayaa garanaya ayaan kugu yidhi. anigii aragga qabay inuu i qaado ilaahay, adigii aragga la'aana uu ku baaqi yeelo si aad ilmaha u koriso waaye. sabab ayuu leeyahay oo ilaahay amarkii cidna kama hor iman karto. insha allah araggaaga mucjiso ayaad kala kulmi doontaa oo qur-aanka ayaad wax badan ku arki doontaa ayuu igu yidhi. halkaa haynoo joogto qaybtii 6aad ee qisadii imtixaanaha ahayd ee ku saabsanayd gabadhii walaashan ahayd ee diinta islaamka qaadatay iyo dhibaatooyinkii ay la kulantay. waa inoo qaybta 7aad iyo channelka saadka aakhiro insha allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.